الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعنا ونكسن دا وضيال إدلهان تيمبا كسو لوادا برنامج جار وأينو كجاه اللينو لباتوني ككوحدة الشباب أي مدة فرح بدن أي كوهيان بالشدة الصوماليات كواس ونوعية كلا دوان سوترا وحنا برنامج كان وأينو كفاقد الدونو لباتة داسي يوقتيه كلا دوان أي صوم مرتيمان تاي نوجو مرتيعة شيخ عبد الله الشيخ محمد دلب ومركزي كسومد كوحدة الشباب إسلام كان مدفر بدن لصوت القليل إن شيخنا كسودو برنامج كان جار كامل كورة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحان شعران لها ولا لها مسلمين تاع ميلك سوي جوغان إن أي سي تحدر له سؤالها هي جوابها لإسويدين يقول دقيستان وانا فائدستان إلهينا وحان كبر يا سبحانه وتعالى إن نوافجيو إن عن موضوع عن كوجل النية صالحة أو وناكسن تفضل سؤالها قصص عشاقي وياهي شيخ عبد الله وحد كمل هيدتك كله لو هجانك الشباب بالمركه هراء وحد النوشة تاع سويال كذا تاريخي ضد بدن بوحي سويديني يعني الشيخ عبد الله هو كما بسم الله الرحمن الرحيم runtii dee sooyaal taariikheed oo weyn oo hadda aan ka sheekeeyo marka la yiraahdo qofka taariikhda ka sheekeeyo hadda jaanibiyo badan bay taaban kartaa waxay ila tahay waxa hadda ugu muhiimsan jaanibka cilmiga iyo aqoonta aan u leeyahay xarakatu shabaab nimanka la baxay xarakatu shabaab al-mujaahidiin la baxay anigu koow ilaa sagaashameeyadii waxaan ka mid ahaa حركة الأورنجري حركة الاتحاد الإسلامي وحا إيجسي هرية وانكسي ميدا هانجري وكهرية حركة الأورنجري حركة الإصلاح أولوض وصوماليا أي وقتيا دا سقاشبية دي آد عرنايين وكهنا قادين وحا كسو قيب قاطي دقالة دي أركاسي أولا قلي دالك إثيوبيا muddo fara badan ayaan ku soo jiray ilaa dhowr iyo sagaashamii 8 iyo 7 meelaha xilli aan u malaynayo ayaan koonfur soo wareegay intii ka dambeysayna waxaan meel dhow kala socday isbedelkii xarakaadka islaamiga ah iyo dadkii jihaadoonka ahaa xilli aan hadda filayo inay ahayd ilaa 2007 sida aan u malaynayo inkastoo Soomaalidu aynan aad wax u diiwaan gelinin كبعدي مركي دجال كسماية وكل حمري نمكي الأورنجري حزب الإسلام هي حركة الشباب دجال كاسو وإنت بدن تولي إثم جيدة يدم جيدة يوحي دبعتين ماشى كذا عضي منكي الأورنجري إبراهيم أفغان الأورنجري أما مع العلي لو يقاني كد مركي وضم بيزينا كوب بحي قعنتها الشباب كل انتي وبرا ويكدلين ننكاس أيا dhibaatada inta u badan lahaa ilaa intaas 2000 iyo waqtigaas aan ku sheegayo dagaalka kadib shabaab si fiican ayaan xogtooda u hayay oo uga mid noqday oo aan la shaqeeyay oo aan la hawlgalay waayahay marka shabaab oo aad ka tirsanayd oo aadna aad ugu dhaweyd hogaamiyahoodii la dilay Axmed Gudane bal maxaa kugu riixay baa la dhihi karaa in aad ka soo baxdo oo aad tubta nabadda qaadato waxaan oran karaa horta markii u horeysay aan al-shabaab shaqada la bilaabayay waxaan si cad oo saraaxa leh u qeexayaa ma ahayn aqiido aan aaminsanahay al-shabaab inay saxan yihiin 100% iyo 100% wax ku dhow nimankani sidoo inaad taqaanay in kala mooyee dadka aqoonta leh ama culimada ah ama xarakooyinka khaasatan kuwa waliba xarakaadka islaamiga alla soo jaan qaaday col bay u yihiin waqtiga isaga dagaalkii kismaayo markuu dhacay kadib
cadaadis fara badan ayaa dadkii aqoon-yahanka ahaa iyo culimmadii soo fuulay dadka anigu inta badan nimankaa radiya ee ka hor yimaada ee afkaartooda naqdiya ayaan ahaan jiray runtii ma aynan suurtagal i ahayn inaan si dhib yar waddanka uga baxo oo dhaqaalo fiicanna ma aanan haysanin meel kalkaa aan ka galo oo markaa iyaga aan kaga dhuunto oo madallo kale oon ka galana ma aanan haysanin waxaan go'aansaday inaan naftayda ugu yaraan badbaadiyo oo aan naftayda la soo baxsado sidaasaan ula shaqeeyey takbiirta ayaan saa ku dheeraysanay waan ku hawlgallay ilaahayna wuu nagu soo badbaadiyey markii aan helay meelaan uga cararnana waan ka cararay waayahay bisaraaxa waa sidaa aad iyo aad maxaa ka mid ahaa marka khaladaadkii dhanka fikirka ahaa iyo manhajka al-shabaab ee ilaa hadda aad aaminsantahay inay ku kaceen xarakada al-shabaab qof kasta oo muslim ah oo aqoon diineed leh ama waayo arag siyaasiya ah ama qof weyn oo duqahoo soo jireenihii wuu garan karaa inay xarakatu shabaab dad khaldan ay yihiin haddaan laakiin qofka doqonka afar waaweyn baa loogu dhigaa waxaa laga yaabaa dadka qaarkii inay yidhahdaan maxay ku khaldan yihiin nimankani way tukanayaan way soomayaan way salaadayaan jihaad bay wadaan maxay ku khaldan yihiin waa xarakada keliya fikirka keliya ee adduunka ka jira ee qof kasta oo ay iskhilaafsan yihiin dil ku xalliya oo luqada xiwaarka iyo in la wada hadlo iyo in wax la isfahansiiyo meesha ka saaray yani qof waad garan kartaan urur dhan ama xarakad dhan oo isku xidhan oo nidaamkeeda leh oo yidhi cid kasta oo fikirkan ay ka hor timaada dil baan ku xallin karaa waa dhibaato aad u adag waayahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal isla arrinkaasaan ka fogeyn ibraahim xaaji jaamac waxa uu ka mid ahaa raggii muddada faraha badan axmed cabdigoodana ay soo wada socdeen ilaa bilowgii aas-aaska al-shabaab markii maxkamadihii ay jabeen kadib ibraahim xaaji jaamac iyo rag kale uu ka mid yahay waxaan ogeyn in axmed cabdigodane uu dilkooda uu ku lug lahaa ama uu ka dambeeyeyba marka maxaa soo dedejiyaa la dhihi karaa in raggaas la dilo oo sababay waxaan isleeyahay waxaa soo dedejiyey ibraahim afqaan iyo ina godane wax diina iskumayna haysan yacni markii dacaayadda la kala faafinayo oo la isradinayo qof waliba ha yidhahdaa anaa hebel diinta uga dhow laakiin waxaa soo dedejiyey ibraahim afqaan in la dilaa waxay ahayd ina godane waxa uu uga baqay naftiisa waxa uu uga baqay nidaamkiisa inuu kala wareego taasaa soo dedejisa odhan karaa waayahay marka dilkaas ibraahim afqaan haddaan ka tagno waxaa jira rag kaloo ajnabi ah oo tani markii al-shabaab ay aas-aasmeen dalka soo galay kasii horena la dhihi karo wayba sii joogeen tani burburkii laga soo bilaabay marka raggaas ajaanibta ah qaar ka mida axmed cabdigodane gacantiisa ku baxeen oo uu ka mid ahaa cumar shafiiq xamaami ninka la yidhaahdo oo ama mansuur al-amriiki dhexdooda ay u yaqaaneen marka raggan ajnabiga iyagu maxay isku qabteen ragga ajnabiga waxay isku qabteen labada nin way is hayeen ibraahim afqaan ama ibraahim xaaj jaamac iyo ninka la yidhahdo ina godane axmed cabdigodane way is hayeen raggan ajaanibtiihina labadaasay la kala safteen oo ragna waxay isku fikir ahaayeen ninka la yidhaahdo ibraahim afqaan ragna waxay isku fikir ahaayeen axmed cabdigodane haddii ay iskhilaafeen haddee ninkii ay u dunmayeen oo ahaa ibraahim afqaan haddii la dilay raggii isaga la safka ahaana waxay noqotay in mid loo ugaadhsado marka waa dhaqan firaqa ama kooxaha dadka gaalaysiiya takfiirka loo yaqaano had iyo jeer waxaa ilaa taariikhdooda markii dib loo akhriyo kuu soo baxaya mar kastoo iyagu dadka gaalaysiiyaan oy go-aan qaataan iyagana dhexdooda way isgaalaysiiyaan marka waa wax sunnatallaahi ah waa wax caatifad ku dhisan waa wax soo jireen oo taariikhda islaamka lagu yaqaano mar walba labadii ku heshiisay inay dadka isgaalaysiiyaan xataa taariikhda islaamka markii dib loo akhrinayo waxaad arkaysaa firqada khawaarijta loo yaqaano oo ama takfiirka loo yaqaano ama khawaarijta loo yaqaana ama af soomaaliga haddii lagu balballaadhiyo dadka gaalaysiiya mararka taarikhda waxaa dhacday 4 nin oo takfiir intay meel isku yimaadeen afartoodii inay isgaalaysiiyeen oo midba meel u dhaqaaqay yacni waa wax la yaab leh marka kooxahaasi way isgaalaysiiyeen dhiigooda isbannaysteen
labadinkii ajnabiga ahaana way la kala saftay waxa kale oo in xusuusinaya oo ayaduna in lagu baraarugo aad u baahan kooxaha ajnabiga ah ee iyagu muhaajiriinta ay u yaqaanaan intooda badani waxay u shaqeeyaan dawlado kale waa jawaasiis intooda badan boqolkiiba 90 waa dad la soo dirsaday marka sir dheer oo iyaga ka dhaxaysa iyo isqabasho iyo in ay iska takhalusaan in laga yaabo dawladihii ay soo dirsadeen inay ka takhalusayaan baa suurtagal oo dawladihii soo adeegsaday laga yaabo inay ka takhalusayaan kolkay sirtooda ka dhameystaan way dhacdaan aad iyo aad kooxdu dil iyo burburin iyo qarbudaad bay u martaa hadafkooda inay xaqiijiyaan marka ma tahay wax sharciga islaamka ku bannaan ama adeegsiga sheegashadooda ah inay yihiin koox islaami ah على الإطلاق كوح داس قفك إسلامي وغيرا كوح دا كلمة هي كوح كستا أو لمدا أنا وحان إسلاهي تحمل إثما كبير الدم وين بوت إلهي كاكسبلي وايو وحاد وغير أو كتسنا يا وحيه وركوح إسلام أما إسلامي كردسان oo nin qur'a oo caalim ah oo rabbaani ah oo mufti ah oo la yaqaano oo mawsuuqa oo ummadda islaamka qaabiliyad ku leh una ka tirsanayn yaani hal sheekh oo hal caalim ah oo la yaqaano ummadda islaamka ay ku kalsoon tahay oo nimanka ka tirsan ama iyaga ku mabda'a ama iyaga la fikira ama iyaga dhex socda ma jiro idan waxaad garanaysaa waa koox qawqaayiina oo qawlaysata oo shariicatul gaabaad ku nool oo doonaya inay bini aadamka burburiyaan qof kasta oo ahlul cilmi ah bari buu ka yahay culimadii Soomaaliyeed away bal culimada Soomaaliyeed fiiri culimada Sacuudi waa saas oo kale culimada Masar joogta waa saas oo kale culimada Algeria Nigeria joogta waa saas oo kale culimada Iraq joogta waa saas oo kale meel kasto ay joogaan dadka culimada iyagu way kala go'an way marka taas maxaa sababa la isdhikiraa waxa uu sababa hada cilmi yari oo waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala علمك وحاو إنا أمرين علماء كقادنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالله إليه إن مقالات كالسلف كاللغة سوري وحكم ذا إن سلف كالأورنجرين العلم كان في بطون الكتب والآن صار في قلوب الرجال ومفاتيحه علم وحو أهانجري إن في قلوب الرجال بكتير جري waxa uu u wareegay fi butuun al-kutub mafaatiixdiisuna ama furayaashiisuna waxay ku jiraan fi sudur rijal macnaheedu waxa weeye cilmigu markii hore qalbiga lagu xambaarsanaa kutubba lagu qoray kutubta ha lagu qoray furihiisi hadana waxay ku jiraan ragga sadrigiisa ku jiraan iyo xabadkiisa marka cilmigi hadii aan culimadii laga qaadan de jahli baa loo doonayaa nimankan culimadii islaamka oo dhan way gaalaysiiyeen culimadii mufaatidii islaamka oo dhan kuma xidhna علمك وحيابه حزبي أو فكر كذا يجا أو أديجي أو أي كسر جروب صدان أو آيات أي حاجة هرية حاجة دمك جويان واحد أركيسا آيات القرآن كأ إلهي سبحانه وتعالى وله ليه ومن يشاقق الرسول قفك الرسول كخلاف من بعد ما تبين له الهدى أنت حقي سوقاري أو حجدي اللي جو أوجي أو دينتي أو عداتي كذب ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني واحد أركيسا قفك ضدك مؤمنين تجد كذا جد أنا هين راح مؤمنين تسوى أيوه وأهل العلم أهل العلم أوي حركات كا وحدومين أيوه ويكجو أيوه إذا وحاس أوران كرتا عاطفة يا فضيد يا جهلي يا حماس الدينيد أو إسقالي أيها الصواب علماء دينا ويكجو أين يا علماء وحاول حيا فدوا وحيس waayahay kooxdu waxay sheegataa in ay jihaad ku jirto Soomaaliya ay ka wado jihaad boqolkiiba boqol waxaan ognahay dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad muslim ah marka dalka Soomaaliya oo boqolkiiba boqol dadkiisu ay muslim yihiin in jihaad uu dhaxdooda ka jiro ma lagu baaqi karaa subhanallah سؤالي هرب باركم مالين أدوي سؤالي وحنصح السنة يا جهادك إسلام كأوجلا آيات قرآن سدح كلمة كسوقاتي
aayadda saddex kelimo ku soo koobtay waxa weeye ilaahay wuxuu yiri wajaahidu fi sabilillah yaan la jihaadna waxay ahayd wajaahidu fi sabilillah ma waqaatilu fi sabilillah wuxuu ilaahay yiri la ku dagaalama marka dagaalamaysaan jidka ilaahay waa saddex kelimadood jihaadka dhan ahkaamtiisa oo dhan ilaahay saddex kelimadood ku soo koobay waqaatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu fiiri ilaahay wuxuu yiri kolka dagaalamaysaan bini aadamku siyaabo badan buu u dagaalamaaye kolka aad dagaalamaysaan fi sabilillah ku dagaalama yaan la dagaalaa alladhina yuqatilunakum kuwa idin la dagaalaya kuwa dagaalaya waayo waa ciidamada qalabka sida ee taangiyada wata ee diyaaradaha wata ee ku dilaya ee ay ka cararaan waxaan arkay ayagoo intay waxaad arkaysaa mar badan iyagoo intay dhufays galaan kolkay arkaan gaalada oranaya war waa gaaladiina carsiya yaani waxay rabaan dadka Soomaalida ah ciidankooda inay la diriraan waxay la dirirayaan musliminimo waa muslimiin inay yihiin bay ugu dhiiran waxayna kula dagaalayaan inay gaala yihiin waxay ku soo xusuusinaysaa xadiiska nabiga ahaa yad'uuna ahla al-kufri yuqatiluna ahla al-iiman wa yad'uuna ahla al-kufr khawaarijta markuu nabigu tilmaamay wuxuu yiri dadkii gaaladana weydiinayaan muslimiinta way la dagaalamayaan ilaahay marka wuxuu leeyahay war kuwa idin la dagaalaya la dagaala ciidanka ilaahay subhanahu wa ta'ala bilisani habibihi sallallahu wa sallam alayhi dadka duqa iyo dadka rayadka iyo dadka muaahadka iyo dadka caruurta iyo dumarka iyo dadka maatida iyo shucuubta in la baabi'iyo ilaahay diintiisa kamid maaha jihaadna maaha ilaahay wuxuu leeyahay waqaatilu fi sabilillahi ya la dirra alladina yuqatilunakum markaad kuwa idin la dagaalaya la dagaashaana wala ta'tadu ahad gudbina fiiri jihaadka dhan saddex kelimo hoos imanaya waxaan dadka shacabka ee Soomaaliyeed weydiinaya wali ma la arkay حركة الشباب Soomaaliya jihaad baan ka wadnaa bay yiraahdaan qof gaal ay u arkaan oo ay qabteen oo ay gacanta ku dhigeen oo ay manaysteen oo sii daayeen oo ay yiraahdeen ordo noolow oo naftaada u noolow waan ku deynay ma jiro jihaadkii nabi maxamed sallallahu wa sallam alayhi imisa gaalo boqolaal iyo kumanaan iyo ashqaas iyo laba iyo koox iyo toban iyo naag iyo nin intaas oo gaalaaba intay qabtaan bay oran jireen orska noolow يعني waxay u sajahaadayna falsafad islaamka lagu baabinayay saala yaro kala Soomaaliya inay dhageysato jaclahay baa jira maalinkii midowga maxaakiimta u bilowday dadka Soomaalida meel ka soo joogan ilaa Ethiopia ilaa Djibouti ilaa Kenya boqolkiiba 99 waxay ku qanacsanayeen culimada Soomaaliyeed inay xukunto oo diinta islaamka lagu xukumo dadka Soomaalida maanta aftay hadii laga qaado leeyahay culimada Soomaaliyeed ay xukunto umalaymahayo boqolkiiba 10 qof inay codayn lahaayeen maxaa soo markay shaqada ayaa qabtay waxa qabtay xarakatu shabaab al-mujaahidiin yaa u qabtay gaalada waxaan aaminsanahay gaaladu inay 20 sano iyo 30 sano shaqada ay al-shabaab 5 sano ku fuliyeen inay 20 sano iyo 30 sano qaban karin shaqada maxay tahay marka shaqadaasi waxay tahay dadka muslimiinta illa nacsiya diinta islaamka maxaa ka weyn dadkii muslimiinta oo maanta ku qanacsan culimada islaamku inaynan xukumin oo xukunka loogu dhiibin oo culimadu ay yihiin bahalo dadka cunaya maxaa ka wanaagsan يعني كل كلا حاجة قالها وفكر إيه وش قيل كلا أو أي تعليين أو أي ولي متمنين وحاس لها حركات الشباب المجاهدين بقى مشروع فلوسي أو قندراس كيس قاعدتي أو قال فلوسي وهي مكان تاس وحن في اليوم تاي فكر أما صور قلدن أو شباب أي كبحيين دين الإسلام كا إن سؤال شكله شباب dadka ku nool meelaha xukuumadda waxay ka qaadaan lacago iyo xoolo aad u far badan oo ay ku sheegeen in ay sakawaad tahay dadkuna mararka qaar kood dalkii abaaraha ka jiro oo nahay dadkii wax ma haystaan ay dib fara badan ku qabaan waxaana inta badan la sheegaa in xoolahaas iyo lacagahaas faraha badan al-shabaab ay ku galaan dagaalada ay kula jiraan dawladda Soomaaliya iyo ciidamada hawlgalka AMISOM oo ay u adeegsadaan dagaaladaas marka sakawaadka iyo hantida laga qaadayo dad abaar ay dul saaran tahay oo aan waxba haysan haddana fidno lagu sii abuuray diinta islaamka maxay ka qabtaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxa jirtay bariyaha kamida
aniga oo nimanka la shaqeeyo oo la jooga yaa waxa la igu qoray muxaadaro ku saabsan zakada in la bixiyo muxaadarada afeefteedii waxaan ka dhigay anigu zakada aan ka hadlayo waa ta islaamka xoolo ururinta al-shabaab ay ku jiraan kama hadlayo meel la yiraahdo qobyaxaas oo deegaanka Hiiraan kamida inay taan maraynayo ayaa iyo shabeelooyin kamida raacsanta ma garanayo qobyaxaas baa la dhahaa maalka zakawaadka ilaahay dadka shacabka iyo culimada iyo ninaba aqoonyahan uma tala saarin ilaahay isaga soo dejiyay isaga qaybiyay waa shay cibaado ah cibaadaduna qiyaas ma aqbasho cibaadadu waa shay mutabac ah la raaco ee shay la qiyaasto aqliga lagu suureeyo ma ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka sida loo qaadayo iyo maalka la qaadayo qadarkiisa iyo cid lagu bixinayo ilaahay baa go'aan ka gaaray waxaynu noo go'aan ka leeyahay ma idan waa bal dadka atahadaakum waan idin kula gelgeltamaya dadka muslimka ah ee Soomaaliyeed ee dhageysanaya waxaan ka codsanayaa ma arkeen al-shabaab tuulo intay zaka ka qaadeen oo ay dadkii tuulada joogay u yeedheen oo ay xoolihii u qaybiyeen sidii sharciga ugu qaybiyeen ay ka dhaxbaxeen shabaab xoolaha way urursadaan bismi zakay ku urursadaan laakiin qasnadooda ay dhacdaan si ay hub ugu iibsadaan way marka taas sikama lagu tilmaami karaa maya lagu tilmaami karo maxaa yeelay zakadu waa shay cibaado ah ma aha wax urur uu qaato canshuura ma aha ama cushuur ma aha way marka aanu ka hadlayno isla arrimahan hadda aynu ku guda jirro oo kale al-shabaab meelay maamulaan meelaha ay joogaan baro control baa ku yaalla barahaas control lacagay ka qaadaan ay canshuur ku sheegeen lacagahaasi waxaa laga yaabaa oo anigan hadda kula hadlayana aan indhahayga soo saaray in dadkii meelahaas ku noolaa aysan laga yaabo inaysan bil dhan aysan dab shidan tusaale ahaan deegaan buulguul la yiraahdo dhawaan lagu xoreeyo 30 kilomitir inoo jira markii ugu horeysay waxaan ku jiray koox wariyaal oo tagay 30 qoys dadaan ku qiyaasay oo waxaan u tagnay sheegay in beerahaas waxyaabaha ka soo go'an mooyeen aysan dab kala shidan marka diinta islaamku maxay ka qabtaa arrin bismillaahir rahmaanir rahiim diinta islaamku hadda waa diin raxmadeed diinta islaamku xoolo la qaado oo aan ummadii wax u soo noqdo oo nafcihi jirin kanaal loogu sameeyeen talaal wax laga qabanayn beer lagu abuurayn nadaafad wax laga qabanayn kii baahna loo soo celinaynin oo la qaadayo hadda waa maal dirqi ah ama sanduulla ah waa maal diinta islaamka aan la kulahayn diinta islaamku maalka dadka in laga qaado de طريقة شرعية هي وكلا إيبسية وكلا بدلشة هي طريق أمضي النفع جد الله صو أورورنا يو أو أنت أمضى حول الله صو أورورنا وحلاوه قمر يو وحن هين أو من شيء كي يكون عيان أو مالك جد أن سلكي سلجرين يكون عيان دين الإسلام كم تشلو وياي إن وحلا شيء إن كحد على الشباب إن أي أديتان قابب فولخن أو جردل يكرام دلة إن سيدتك أي قبطان أما محابيس أهان أي وهايستان أي أغسو صاران قرالة بين سي أي أبنايستان دلكو ذا أرين تاسم حاجة جرا وحان لا يابان هاي إن مد أن أسو تاقنا إيا مد شباب سراكيشو دو أي لسان كوضا كو قران إيا مد إذن كاش عقلي هان أدسوي ديسان بلو حي تاي ماشا كل قلدا مد أن أسو تاقنا وحي هاي قف إسلاما oo la xidhay oo wax lagu khasbay inuu qirto oo yiri war Allah hay ka Allah oo 10 ciidood ba laga saaray waan soo taagnaa xagee ka dhacday waxay ka dhacday shabaabka dhaxiisa markay ka dhacday waa mid labaad saraakiisha al-shabaab ninkii la oran jiray Macall Ali ama Ibrahim Afqaan la oran jiray warqada uu qoray inuu godona ka qorayo waxa ku jirtay shabaabka xabsiyadooda qofka galaana waa qof dhintay oo laga samray oo mafquud ah qofka ka soo baxana waa qof mawluud oo hadda dhashay macnaha wuxuu kaga waramayay
yacni shabaabka xabsiyadoodu sida ayna naxariis u lahayn marka inaga oon meel kale u kicin iyaga saraakiishoodii markay isnaqdinayeen ta ay isku xukumeen iyagu dhexdooda ay iska sii daayeen ba waxay ahayd xabsiga shabaab ninka galaana waa qof dhintay oo laga samray qofka ka soo baxaana waa qof dhashay oo caawa loo dabaalday in loo waqala u baahan weey talabaad een raba inaan isweydiiyeen la yaabo waxa weeye xarakadan wax ay gaalimo u yaqaanaan oo ay rabaan qofka dhiiggiisa inay ku banaystaan yay qofka weydiinayaan qofkii wixii gaalimo u arkaan qofkii wuxuu leeyahay laa ilaaha illa allah muxammad rasuulullaah waxaas waa gaalimo ma gelin waxa la leeyahay qiro gaalimada marka waxaan la yaabay diinta islaamka meesha ay ka keeneen qof muslima oo gaalimo lagu xambaarayo inuu qirto oo la leeyahay markuu gaalimada qirtana dhiiggiisa la galo diinta islaamkuna waxay ku dhisan tahay in qofka xataa haddii uu khalad sameeyo tabriir loo sameeyo oo nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi waa kale idra'u lxuduuda bishubahaat yacni qofku kolkuu xataa yidhahdo waan zinaystay ama qofku kolkuu yidhahdo waxbaan xaday ama qofku markuu yidhahdo gaal baan ahay waa in cudurdaar loo raadiyo la yidhahdo war maya maadan waxba samaynina waad cagban martay la yidhahdo laakiin qof lagu qasbayo la leeyahay gaalnimadii qiro si aan kuu dilo tacaala allahu can dalik waa wax lala yaabo inta aynan u soo laaban waxyaabaha talooyinka ee aad soo jeedinayso waxaan rabaa inaan hal su'aal ku weydiiyo al-shabaab muddaad yaa la soo joogtay oo aad la soo dhaqmaysay dhacdo hadda ka hor kismaayo ka dhacdaan rabaa inaan ku weydiiyo oo gabar la sheegay in ay sinaysatay oo dadka eheladeedii ahna markii dambe ay sheegeen in waxoogaa dhimirka lagaga jiray in dhagax lagu dilay oo al-shabaab dhexdoodana ay muran fara badan ka dhalisay bal dhacdadaasi wixii aad kala iyo dhacdadaas horta ma aanan xaadirin oo qadiyadeeda kor baan ka maqlay ma aanan xaadirin laakiin de waxaad arkaysaa oo ku naqaanaa islaamnimada iyo sharciga iyo bini aadamnimadaba qofka in maxkamad cadaalada la saaro qofka waxyaabaha zinada ku saabsan oo kale qofku markuu inkiro xataa nabigu salawaatullaahi in laga daayo xataa nabigu salawaatullaahi wasalaamu alayhi waqtiyada ka mid ah nin dhagax lagu dilay oo qirtay oo isagu yimid oo nabiga xadda iga oofiiri oo maacis la oran jiray markuu cararay nabigu wuxuu yiri salawaatullaahi wasalaamu alayhi war hadduu cararay cararkaasi wuxuu ka dhigan yahay inuu inkirsan yahay qofku hadduu xataa cararo haddii la dhagax lagu dilo hadduu cararo hataa waa in laga daayo maxaa yeelay cararkaasa wuxuu ka dhigan yahay wixii aan sheegtay been buu ahayo waan ka noqday ileen xuduudda in shuhubada iyo malamalaha lagu baajiyo waa diinta islaamka hadaf ka mid ah marka inaynan marnaba si cadaalada u dhicin oo aynan maxkamad cadaalada helin oo gabadhaasi xataa dhimirkeeda lagu jiray bay dad fara badan oo culimo leh oo caamo leh oo dad waaweyn leh isku raacsan yihiin waayahay marka al-shabaab inta badan waxaan ka maqalaa warbaahinta iyagoo leh qof hebel oo ka tirsanaa surdoonka waddan hebel yaan qabanay basaas buu ahaa isagaa qirtay kadibna way dilaan bal umuuraha caynkaasi iyo waxa adigu aad kala socotay nolol bismi illaahi raxmaani raxiim hadda waxaa weeye qofku iyagaa sheegtay inay qofkani sirdoonka ka mid ahaa meelay inoogu caddeeyeen ama uu isagii ku qirtay oo qiraal aho ina hor keenayaan ama qareen ahoo ay u qabteen oo qof u doodo oo hataa bini aadamnimada u doodo oo lisaanka u hagaajiya ama meel maxsharahoo ay ku qabanayaan oo leeyihiin maxkamaddii ku saarayaan ma aragno qofkii waxa weeye bini aadam qofkii ay doonaan inay dilaanba hataa hadday isaga sameeyaan oo yidhahdeen jaajuus buu ahaa ama sirdoonka dawlad heblow ka mid ahaa wax suurtagala ma aha wax caqliga bini aadamka u cuntamana ma aha ta kale waxaan rabaa meeshan nuqdadaa lafteeda inaan uga faa'iidaysto intee baad aragteen qof al-shabaab ka mida ama saraakiishooda ka mida ama ciidankooda ka mida ama raggooda culimmada u ahee horjoogayaasha u ah ka mida oo intuu dembi galay maxkamad la saaraya xaggaynu ku aragna aslanba iyagu ma dembaabaan mise ma dembaabaan ma malaa'ig baa waxa weeye marka maxkamadaha al-shabaab waxa weeye waxay qabataa dadka masaakiinta ah dadka xoogga leh iyo dadka jaaha leh iyo dadka subcadda leh iyo dadka maal qabeenka ee iyagu ay nafciga ku qabaan ma qabato had iyo jeer qof ajnabi iyo qof miskiin oo shacab iyo wada suufiyo meelaha tusbax kala hadheen iyo kuwaas ay ku fuliyaan waxaan ataxadaakum waxaan idin kula googaltamayaa ma aragteen nin xarakatu shabaab ka mid ah oo saraakiishooda ka mid ah
oo ciidankooda ka mid ah oo xubnahooda ka mid ah oo ay maxkamad saarayaan aslan xarakatu shabaab wax maxkamadoo ka jirtaa ma jirto waayahay waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo axmed godone markii la dilay nin cusub baa hadda hoggaanka ay u dhiibteen oo axmed diiriye cabdikariin la yidhaahdo bal ninkaas iyo taariikhdiin adigu waxaad kala socoto iyo haddii aad soo wada shaqayseen iyo ninkaas saaxiib baan nahay saaxiib aad isugu dheer baan nahay ilaa dhowr jeerna macallin waan u noqday dhowr jeer kitaab baan xataa dhowr jeer ilaa 3 jeer u akhriyay mise 2 jeer intaan xusuusnahay 3 jeer iyo 2 jeer midkood aan ku shaqaysnahay ninkaas nin fiican baa markii ugu dambeysay laakiin de waxaan naxariisanaynin haddii qofkii uu diiniyan u khaldan yahay oo ictiqaadkii ka halaabay oo uu qofka falsafad khaldan ku socdo oo ummadii halaagayo oo uu doonayo dadka dhiiggiisa inuu banaysto oo culimadii Soomaaliyeed dhiigooda banaysto laga aqbali maayo ta kale waxaan ku xusuusinayaa qofkani waa jaahil anaaba ku sheegay inaan macallin u ahaa aqoon gaaban oo aan aqoon badan oo saas lahayn hadda uu Axmed Diiriye ku gaaray Axmed Diiriye Cabdikariin baa la dhahaa magaalada Kismaayo macallin buu ka ahayn macallin quraan buu ka ahayn kolkii u horeysay uu yimidna waxay ahayd xarakadii waagii asana caydiid uu Kismaayo qabsaday niman al-ittixaad xarakadii la oranjay ay soo direen oo mucaskar marka ku yaalay laga soo diray oo loogu talagalay gabdhihii ittixaadka ahaa iyo haweenkooda iyo caailaadkooda inay badbaadiyaan iyo ku soo galay Kismaayo ninka taariikhda waa naqaana waa nin arday ah oo aqoon yar oo miskiin ah oo heer uu hadda fatwoodo oo uu dad dhiigi kala saaro oo uu qawaacida islaamka dabdiyo oo manaat al-hukm aayada iyo xadiidka meesha mafhuumkooda uu ku xidho ma gaarin waxaan islaahay waa ninka raga nabi alayhi salaam ninka loo jiray radiyallahu anhu Ali ibn Abi Talib bal weydiyo waxa la yiri khawaarij niman loo jiray la dirin jiray yaa la weydiyo waxa la yiri magaala wuxuu la min al-kufr farru gaalnimada ka carreen xaqii gaala ka yiri waxa la yiri munaafiqiin baa ma munaafiqiin baa waxa ay ku socdaan waa u daacad oo waa ka dhab ma hayhiin baa la yiri wuxuu yiri waa walaalaheeno fitna asiibtay fitna ku dhacday saasa lagu yaqaanaa dadka ahlu sunnaha dadka ahlu sunnahi intay qofka ku xanaaqaan ma gaalaysiiyaan tusaale ahaan bal fiiri Ali ibn Abi Talib nimankii la dagaalamayay ee dhinacna Muawiya iyo ragiisi ahaa dhinacna khawaarij ahaa midna inuu gaalaysiyo u diiday Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala imaamka cadimka xabsiga kuwii dhigay ee jirkiisa googooyay ee uu kamid ahaa ninkii loo oran jiray al-Ma'mun ibn Harun Rashid wuu diiday inuu gaalaysiyo inuu gaalaysiyo wuu diiday yaani dadka arso wuxuu u ducayn jiray bal ninka isaga iyo Ahmad ibn Hanbal wuxuu ku gaxambaarayay inuu qirto inuu yahay khalqul qur'aan waa kalimatu kufri ninkii ku xambaarayay inuu khalqul qur'aan qirto Ahmad ibn Hanbal inuu gaalaysiyo oo uu gaalimiisa fatwada u diiday waxaan ilaahay oo u dardaarmi lahaa nimanka iyaga in ay ka jawaantoobaan caadifada ay kula kacayaan ee marka caadifadu qabato dadka muslimiinta ay gaalnimada ku xambaarayaan waayahay marka iyadoo ay saas tahay oo Axmed Diiriye Cabdikariin sidaas aad u taqaano maxaad isleedahay al-shabaab muddo intee la eg buu sii hogaamin karaa oo aad isleedahay kooxdan way sii jiri kartaa intuu soo hoggaan ku ahay niyo anu waxaan kooxdan isleeyahay gaalada buunbuunisaba gaalooyinka iyo duwalka dariska abaaba raba inay jiraan baan isleeyahay waxaan hubaa oon anugu yaqiinsanahay waqti dhow inay baaba'ayaan diinta islaamka inta qoomiyada iyo inta quruuna iyo inta xaraka khaldan ah ee ku soo duushay ee taariikhda hadda aynu qiro ee la yiraahdo sida hilaac bay soo baxeen oo way baaba'een tira male kuwa uma kamid noqon doonaan waxaan isleeyahay haddii nimanka laga garaaco gaadiidkooda la beegsado saraakiisha yaryar hadda rag waxaa jira waa kuskuusan oo lacag la saaro hebel soo qabtay la maaha ragga yaryar ee hawlwadeennada ah haddii laga toogto gaadiidkoodana la garaaco oo lagu kalifa inay lugeeyaan oo ninka intuu ceel burca wasaxay habeen dambana kulbiyo wasaxanaya lala dagaalamo oo gaadiidka laga naafeeyo way isdhiibi lahayn
marka gabagabadii baynu soo gaarnay maxaad kula talin lahayd dhalinyarada la marin habaabiyey ee al-shabaab ay u adeegsadaan qaraxyada iyo dilka dadka walaalahooda ee muslimka ah iyadoo aan ognahay in madaxda kooxdu ay nolol fiican ay haystaan halka dhalinyaradana ay dabka ku shubaan dhalinyarada muslimka ee Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa in ay fikir lahaadaan oo ay ka waantoobaan waxaan ay baabi'inayaan waa ummadoodii oo ay arkaan kuwa dirayay ilmahoodii inay jaamacada geysteen naagahoodii meel ay ku raaxaysaan iyo magaalooyin inay geysteen waxaan kula talin lahaa inay wax bartaan oo kolka ay wax bartaan ay aqoon yeeshaan ay markaas ay caqiidadooda miisaami karaan oo ay masaalixdooda garan karaane war dhalinyaro ay wax barta tafaqahu fi diinillaahi wa diinta ilaahay fiqh u yeesha oo diinta ilaahay barta oo ka waantooba waxaan aad ku jirtaan oo waxaad eegtaan ninkan idin diraya ee qaraxa idin ku xidhayay wiilkiisii away ma haynaa nin xarakatu shabaab ka mid ah oo wiilkiisii iyo kii jifadiisa ahaa intuu miino ku soo xidhay soo diray ma hayno bilaa anu ma arag mana maqal dhalinyaro waxaan kula talin lahaa ragga isqarxinaya intooda badan waxay ka yimaadaan dibadaha waana dad nolosha ka dhacay oo nolosha ku soo fashilmay dhalinyaro waxaan kula talinayaa inaad wax barataan waa hagaag noqday ileen xuduudda in shuhubada iyo malamalaha lagu baajiyo waa diinta islaamka hadaf ka mid ah marka inaynan marnaba si cadaalad u dhicin oo aynan maxkamad cadaalad helin oo gabadhaasi xataa dhimirkeeda lagu jiray bay dad fara badan oo culimo leh oo caamo leh oo dad waaweyn leh isku raacsan yihiin waayahay marka al-shabaab inta badan waxaan ka maqalnaa warbaahinta iyagoo leh qof hebel oo ka tirsanaa surdoonka waddan hebel yaan qabanay basaas buu ahaa isagaa qirtay kadibna way dilaan bal umuuraha caynkaasi iyo waxa adigu aad kala socotay marada bismillahi raxmaani raxiim hadda waxaa weeye qofku iyagaa sheegtay inay qofkani sirdoonka ka mid ahaa meelay inoogu caddeeyeen ama uu isagii ku qirtay oo qiraal ahoo ina hor keenayaan ama qareen ahoo ay u qabteen oo qof u doodo oo xataa bini aadamnimada u doodo oo lisaanka u hagaajiya ama meel maxsharahoo ay ku qabanayaan oo leeyihiin maxkamaddii ku saarayaan ma aragno qofkii waxa weeye bini aadam qofkii ay doonaan inay dilaanba hadday isaga sameeyaan oo yidhahdeen jaajuus buu ahaa ama sirdoonka dawladda heblow ka mid ahaa wax suurtagala ma aha wax caqliga bini aadamka u cuntamana ma aha ta kale waxaan rabaa meeshan nuqdadaa lafteeda inaan uga faa'iidaysto intee baad aragteen qof al-shabaab ka mida ama saraakiishooda ka mida ama ciidankooda ka mida ama raggooda culimada u ahee horjoogayaasha u ah ka mida oo intuu dembi galay maxkamad la saaraya xaggaynu ku aragno aslanba iyagu ma dembaabaan mise ma dembaabaan ma malaa'ig baa waxa weeye marka maxkamadaha al-shabaab waxa weeye waxay qabataa dadka masaakiinta ah dadka xoogga leh iyo dadka jaaha leh iyo dadka subcadda leh iyo dadka maalqabeenka ee iyagu ay nafciga ku qabaan ma qabato had iyo jeer qof ajnabi iyo qof miskiin oo shacab iyo wadaad suufiyo meelaha tusbax kala hadheen iyo kuwaas ay ku fuliyaan waxaan ataxadaakum waxaan idin kula googaltamayaa ma aragteen nin xarakatu shabaab ka mid ah oo saraakiishooda ka mid ah oo ciidankooda ka mid ah oo xubnahooda ka mid ah oo ay maxkamad saarayaan aslan xarakatu shabaab wax maxkamadoo ka jirtaa ma jirto waayahay waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo axmed godone markii la dilay nin cusub baa hadda hoggaanka ay u dhiibteen oo axmed diiriya cabdikariin la yidhaahdo bal ninkaas iyo taariikhiyan adigu waxaad kala socoto iyo haddii aad soo wada shaqaysan iyo ninkaas saaxiib baanu ahayn saaxiib aad isugu dheer baanu ahayn ilaa dhowr jeerna macallin waan u noqday dhowr jeer kitaab baan xataa dhowr jeer ilaa 3 jeer u akhriyay mise 2 jeer intaan xusuusnahay 3 jeer iyo 2 jeer midkood aan ku shaqaysnahay ninkaas nin fiican baa markii ugu dambeysay laakiin de waxaan naxariisanaynin haddii qofkii uu diiniyan u khaldan yahay oo ictiqaadkii ka halaabay oo uu qofka falsafad khaldan ku socdo oo ummaddii halaagayo oo uu doonayo dadka dhiiggiisa inuu bannaysto oo culimmadii Soomaaliyeed dhiiggooda bannaysto laga aqbali maayo ta kale waxaan ku xusuusinayaa qofkani waa jaahil anaaba kuu sheegaya inaan macallin u ahaa
aqoon gaaban oo aan aqoon badan oo saas lahayn hadda uu Axmed Diiriye ku gaaray Axmed Diiriye Cabdikariim baa la dhahaa magaalada Kismaayo macallin buu ka jiray macallin quraan buu ka jiray kolkii uu horeysay uu yimidna waxay ahayd xarakadii waagii asane Caydiid uu Kismaayo qabsaday niman al-Ittixaad xarakadii la oranayay ay soo direen oo mucaskar marka ku yaalay laga soo diray oo loogu talagalay gabdhihii Ittixaadka ahaa iyo haweenkooda iyo caailaadkooda inay badbaadiyaan iyo ku soo galay Kismaayo ninka taariikhda waa naqaana waa nin arday ah oo aqoon yar oo miskiin ah oo heer uu hadda fatwoodo oo uu dad dhiigi kala saaro oo uu qawaacidda islaamka dabdiyo oo manaat al-hukm aayadda iyo xadiidka meesha mafhuumkooda uu ku xidho ma gaarin waxaan islahay waa ninka raga nabi alayhi salaam ninka loo jiray radiyallahu anhu Ali ibn Abi Talib bal weydiyo waxa la yiri خوارج نمن لو رجل الله دين رجل يا لو يديو وحالي مقالة وحول الله من الكفر فروا قال لي ما بكعرين حقيقة قال كي وحالي من منافقين با ما هي منافقين به وحر أي كصعلان وأضاع وكذب ما هي بالليل وحول ووالله هنا فتنة عصيبتين فتنة كل عظيم ساس لوي قنادتك أهل السنة ذاتك أهل السنة هي انت يقفك كحنا قان مجالسيان تصالحان بالفير علي بن أبي طالب نمكي لا دجالبي دينا عن معاوية الرئيسية دينا عن خوارجها منا إنه جالس يودي أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمامك عظيم كان حبسي قوي دقي تركي سجوجي وكمل أهانين كيلو رنجري المأمون ابن هارون الرشيد ودي ده إنه جالس وجالس إنه جالس يودي يعني ذاتك أرسل وحده عن شيء بل منك إسقي أحمد بن حنبل وحقوق حنباري إنه قرط إنه يهي خلق القرآن هو كلمة الكفر نينكي كو حنباري إنه خلق القرآن قرط أحمد بن حنبل إنه جالس يو أو جالبين زفت وده ودي وحن الله ونقدر دار من هالنمان كأيجا إن أي كجوان توبان عاطفة أي كلك عيان مركا عاطفة قبضة ضدك مسلمين تاعي جالبين كو حنباري ويه مركا iyadoo ay saas tahay oo Axmed Cabdikariim Axmed Diiriye Cabdikariim sidaas aad u taqaan maxaad isleedahay al-shabaab muddo intee la eg buu sii hogaamin karaa oo aad isleedahay kooxdan way sii jiri kartaa intuu soo hogaan ku hay niyo anu waxaan kooxdan isleeyahay gaalada buunbuuninaysa gaalooyinka iyo duwalka dariska abaaba raba inay jiraan baan isleeyahay waxaan hubaa on anigu yaqiinsanahay waqti dhow inay baaba'ayaan diinta islaamka inta qoomiyada iyo inta quruuna iyo inta xaraka khaldan ah ee ku soo duushay ee taariikhda hadda aynu qiro ee la yiraahdo sida hilaacdiga soo baxeen way baaba'een tira male kuwa aan bay ka mid noqon doonaan waxaan isleeyahay haddii nimanka laga garaaco gaadiidkooda la beegsado saraakiisha yaryar hadda rag waxaa jira kuuskuusan oo lacag la saaro hebel soo qabtay leeyahay maaha ragga yaryar ee hawlwadeennada ah hadii laga toogto gaadiidkoodana la garaaco oo lagu kallifo inay lugeeyaan oo ninka intuu ceel burca wasaxay habeen dambana kulbiyo wasaxanaya lala dagaalamo oo gaadiidka laga naafeeyo way isdhiibi lahayn marka gabagabadii baynu soo gaarnay maxaad kula talin lahayd dhalinyarada la marin habaabiyay ee al-shabaab ay u adeegsadaan qaraxyada iyo dilka dadka walaalahooda ee muslimka ah iyadoo aan ognahay in madaxda kooxdu ay nolol fiican ay haystaan halka dhalinyaradana ay dabka ku shubaan dhalinyarada muslimka ee Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa in ay fikir lahaadaan oo ay ka waantoobaan waxan ay baabi'inayaan waa ummadoodii oo ay arkaan kuwa dirayay ilmahoodii inay jaamacada geysteen naagahoodii meel ay ku raaxaysaan iyo magaalooyin inay geysteen waxaan kula talin lahaa inay wax bartaan oo kolka ay wax bartaan ay aqoon yeeshaan ay markaas ay aqeedadooda miisaami karaan oo ay masaalixooda garan karaan war dhalinyaro wax barta tafaqahu fi diinillahi wa diinta ilaahay fiqh u yeesha oo diinta ilaahay barta oo ka waantooba waxan aad ku jirtaan oo waxaad eegtaan ninkan idin diraya ee qaraxa idin ku xidhayay wiilkiisi away ma haynaa nin xarakatu shabaab kamida oo wiilkiisii
iyo kii jifadiisa ahaa intuu miino ku soo xidhay soo diray ma hayno bilaa anu ma arag mana maqal dhalinyaro waxaan kula talin lahaa ragga isqarxinaya intooda badan waxay ka yimaadaan dibadaha waana dad nolosha ka dhacay oo nolosha ku soo fashilmay dhalinyaro waxaan kula talinayaa inaad wax barataan waa hagaag daawadayaal guud ahaan intaas